munaasabad lagu xusay maalinta afka hooyo ayaa maanta oo Talaadaha lagu qabtay xarunta Akademi Goboleedka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka Banaadir, xildhibaano, agaasimayaal, abwaano, aqoon-yahano ku xeel dheer afka hooyo iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay Dictoresa Maryan Cariif Qaasim oo sheegtay 21 Febraayo inay tahay maalin la isku xasuusiyo afka hooyo, muhiimna ay tahay waxa ayna xustay in loo baahan yahay afka hooyo oo la qoro. laga bilaabo sanadka 2000 oo la soo dhaafay badida dalalka dunida waxaa lagu qabtaa xaflado la isku xusuusinayo mudnaanta uu afka hooyo leeyahay iyo xilka naga saaray ilaalintiisa iyo horumarintiisa labadaba. agaasimaha wargeyska dalka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Saalax Shire Aadan ayaa munaasabada uga warbixiyay marxaladaha uu soo maray qorista afka hooyo. annaguna 1960 markaan qaadanay xorriyadda hal sano kadib dawladda rayidka ahayd waxay ka fikirtay sidii loo heli lahaa luqadeena ama far Soomaali ah sidii loo heli lahaa ay ka fikirtay 1971 dawladda kacaanka ayaa waxay sameysay maxaa la dhahaa guddi ka shaqeeya sidii loo heli lahaa far Soomaali. gudoomiyaha Akademiyad Goboleedka Soomaaliga Cabdalla Cumar Mansuur ahna nin muddo dheer daraaseynaya afka hooyo iyo afaf kale oo badan ayaa waxa uu ka hadlay horumarinta afka hooyo. waxyaabaha aan qaban karno midii dardargelinta maaragtay hay dambaysa oo heer dawladeed ay u baahan tahay, laakiin midda mideynta ayaa aan isniri balan isu dayno inaan ku bilaabno maaragtay sidii aan u gudbin lahayn aqoontayada intii aan aruurinay ama aan ka sameynay xagga mideynta af Soomaaliga. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan Maxamed oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ka qayb qaadan doono kor u qaadida afka xafiisyada dawladda hoosena waxa lagu qori doonaa afka hooyo, ganacsatadana waxa ugu baaqay in boorka lagu qoro afka Soomaaliga si loo dardargeliyo. waxaan meeshan ka xariiqaa in maamulka gobolka Banaadir xafiiska uu asteesan yahay arrimaha bulshada iyo wacyigelinta in aan sameyno wacyigelin buuxda ku saabsan afkeena hooyo, aan ku wacyigelino dhammaan bahda ugu weyn ee maamulka gobolka Banaadir sida shaqaalaha gobolka. xildhibaan Cabdullaahi Xasan Roble oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed aysan afka hooyo ku hadlin, isagoona sheegay in arrintaasi halis ku tahay afka hooyo. waa sida hadda socota inaan afka ku hadlaynin. waxay ilaa sida kale uu ku dhinta waxa kamid ah in guriyaha lagaga hadli kari waayo. shayga saddexaad ku dhinta waxa weeye in dadka waaweyn kaliya ay ku hadlaan. sanad walba 21 Febraayo ayaa waxaa laga xusaa dunida oo dhan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, waxaana la qabtaa munaasabado lagu weyneynayo afka hooyo si ummad kasto ay u qaado afkeeda. Deeqa Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.